iskaciyo arliba xaguday dantiisi waxa weeyaan aqoonsigeena iyo nolosheena iyo nafteena ayuu ka jirtaa maantunba aynu la hadlay waxaan ku waxaan kala maaha taag markay lu kula galaana weliga allaha kaba kicin karaysid waxana weeyaan waxaynu ogolaan karno aynu qaadan karno oo shacbigu uu qaadan karana maaha lamana ogolaan karo haddii Oromo iyo Taara inoo noqoto waxa weeyaan Soomaali weyn inaynu raacno iyada quwad lehna Itoobiya si inuu gali jirnay u gallo ayaa taasan aanu kaga kalsoonahay waxaan leeyahay jawaahirta reer Soomaaliland waxaan leeyahay dhalinyarada war wadanka inaga leh yaa waxaas laga yeelin Itoobiyaan in duldiga cid halka ka dhaqaajinaysa ma jirto ayaan leeyahay marka waxaan leeyahay anagu wax kasto oo aan qarannimada Soomaaliland ku helino aan diinta islaamka hayna ka baxno diyaar baan ciidan ka tashanaa ma jirto Soomaaliya wax leeyahay ayra ma labada Kuuriya noqon doona waqooyi koonfur noqon doona nugeerka weyn duu saar doona marba ciidan yilaan ama Imaaraadka iyo Sacuudiga laba waala marba afka macmaanka isku gura aynu haana labadii ka diyaar waayo dawlad ka xoog weyn ka dal weyn ka dad badan ka siyaasiisan in aad badada iyo dhulka aad iska leedahay aad ku soo dhaweysaa waa maxkamad jiraan waxaan markaa u soo jeedinayaa baarlamaanka Soomaaliland inay diidaan dawlad naga xoog weyn naga dal badan naga dad badan naga istiraatiijisan heshiiska aad iyo aad baan uga soo horjeedaa waa heshiis khalada wali ma aan arag meel ictiraaf Itoobiya ku sheegtay ilaa inta ictiraafka Itoobiya ayna siinayso inaan badeena bixino maaha marka aan ictiraafka loo badeena ma bixin karnaa laakiin iminka ma inaan arag ictiraaf liina siiyay baarlamaanku kulay maraya heshiiskani baarlamaanka waxaan ka codsanaa maadaama nahay dadkii dooranay ilaa ay arkaan ictiraafka Soomaaliland inaan saxiixin arinka in laga fikiro waa arin masiiriya weeyaan khatar inagu noqon kara ciidan baa soo degiya dal shay ka imanaya waxaan noqon karto meesha la qaato kala waxaasan kaga baxayaan heshiiskan la wada galay ee Soomaaliya ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya madaxweyne Muuse Bix anu waxaan arkaa heshiis qalad ah oo sax ahayn darayiga in ka liibto de kale waa heshiis maraya baarlamaan marayo wax imka dhamaaday ma jiro waa heshiis baan u gaanay yiraahdeen heshiiskaasina wax soconaya inaan hayn baan ugu qabaa imka wax soconaya inaan hayn baan aaminsanay dan ra'yiga ka hadlo waxa weeyaan heshiiskii Soomaaliland iyo Itoobiya wada gaareen danta Soomaaliland baa ku jirta waa muqaddis cid ka hadli ninkii ka hadlaana waa nin iska hadlay waxa iska ciyaar liba xaguday dantiisi waxa iska ciyo arliba xaguday dantiisi waxa weeyaan aqoonsigeena iyo nolosheena iyo nafteena ayuu ka jirtaa maantunba aynu la hadlay inaynu yaqanihiis dal degi kara oo aqoonsi yeelan kara oo jira aynu noqono Allahumma salli wa iga dhan waxaan warkaa wallahi si wanaagsan baan warkaa oo soo dhaweynaya madaxweyne qarku mahadsan dawlad aqoonsigeena ku jira Soomad garan mar haddii qoyskiinu ku jirana aad iyo aad baan soo dhaweynaa walaal intaas baan kaleey yaa laga daba hadli madaxweynaha aan lagu taageero aan laga galo waxaan ku deesin wanaagsan hawsha la wado nimanka mucaaradkan waxaan u sheegayaa in qeylaya noo bilaawna dalka wixii dalka dadka wadana aka hadlaan heshiiska aad iyo aad baan u taageersanahay waana aqoonsigii oo buuxa Afrikana uu maraya madaxweynuhu hadii la ilaalo dhamaan saasaan idinku sheegaya dadka waxa leeyahay waxa loo buuqa iska daayo tan leeyahay waxa loo arkaa tan ninkii la ka tashaday ayaan u arkaa meel walba cid baa joogta meel walba cid baa joogta dadkuna waa kala degaan koowde tanunba masiirkiisu soo jartay waxaan ku waxaan kala maaha taag markay lu kula galaana weliga allaha kaba kicin karaysid waxana weeyaan waxaynu ogolaan karno aynu qaadan karno oo shacbigu uu qaadan karana maaha lamana ogolaan karo waxa weeyaan Xasan Sheekhna barbo halka lacagtii ku qaatay oo ka Djibouti yimid Ismaaciil Umar Galana uu qaatay dalka baabaayana waa dalkeeni waxaana wax inoo soconaya ma haddii Oromo iyo Taara inoo noqoto waxa weeyaan Soomaali weyn inaynu raacno iyada quwad lehna Itoobiya si inuu gali jirnay u gallo ayaa taasan aanu kaga kalsoonahay kana jecelahay waxana weeyaan waxaanu qaadan karnana maaha Muuse waxaan leenahay dib uga noqo hadaa dib uga noqo weydana waxaad ka heshaan leedahay wallahi waxa markaa saaxiib sheekada caadi ahayn migraans badda marna wax la kulay waliyo marna wax la yiri waa la kariyay migraans hadii leeyo waxa leeyahay madaxweynaha deel lacag wax naga soo gaarsiin badda waxaan ku leenahay hadii la kariyay waa caadi iyo waa Soomaaliland badda migraans ee dhaqaale soo galiyo waa laba dhinac badda marka baahan migraans taasina waa faa'iido walaal waan ku dhawahay heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya waxaan u arkaa
inuu madaxweynuhu musuqmaasuq ku kacay musuqmaasuq sameeyay waxa weeyaan waa dal guuno jaarkaaga inaad baddaada u saxiixdo waxaan micno badan sameeyeen oo aqoonsi oo ka siisato ma wanaagsana waxaanan leeyahay baarlamaanka Soomaaliland idinku marna waxa aqbalinataa haddii taa la aqbalana annaga ka jawaabi doono shicibhaana waxaanan leeyahay arrinka baarlamaanku waa ka fiirsadaan maadaama madaxweynaha halka arrinka soo markii hore uu si fudud ku bixiyay waxaana waxa inuu tashi soo maro oo muddo socdo heshiisyada marka dawladda caalamka la gelayo waxa weeyaan inuu muddo badan socdo dee tashi soo maro hawlo badan soo maro ayse si fudud ay arkaas ku dhaceen waxaanan u arkaa arrin qalad oo madaxweynuhu ku kacay magacaygu waa Barra Ali Cabdi wallahi heshiiska waxaan u arkaa wadan la kala iibsaday oo musiibiyo mar arkaa waxaan leeyahay jabaahiirta reer Soomaaliland waxaan leeyahay dhalinyarada war wadanka inaga leh yaa waxaas laga yeelin Itoobiyan in duldiga cid halka ka dhaqaajinaysa ma jirto ayaan leeyahay heshiis wiligeed bay Itoobiya ku taamaysay sidii ay Soomaaliland degateeda u qabsan lahayd ayuu xoojiyay mar horaanay wadankan laga shaxay ilaa iyo intii xayla mililig uu dalka xukumayay ilaa iyo intii 1884 waxay ku hamiyeen inay degateena soo galaan xabashido aad iyo aad baanu arrinka in looga fiirsado oo dib looga noqdo ayaan anigu aad iyo aad ugu talin lahaa waayo dawladdu waa dawlad naga weyn meel walba way soo taabatay Itoobiya waxay Djibouti way isku qaaday way diiday qolada kale waa tii ka qabsatay dekadii oo tii u diiday sababta uu maanta abi dekedeena ugu taamayo dee waxa weeyaan meel walba ka soo xidhantay marka waxaan oran lahaa tay qori ku xoreyn kari waday maanta doonayna qalin ku xareeyaan marka aad waxaan oran lahaa heshiiskaas waa heshiis qaldan dub ha loogu noqdo markaan waxaan arkaa heshiiska khalad baan u arkaa way wax weeyaan waa dawlad inaga daaweyn had iyo jeer dooraysa siday inagu maamuli lahayd ama gacanta inoogu qaban lahayd ayay ku jirtaa falowgeeda markaan waxaan leeyahay heshiiskaas waa khalad aad iyo aad u weyn iyaduna had iyo jeer waxay ku taantaa siday Soomaaliland ay u maamuli lahayd dekedeeda iyo wixeedaba u qabsan lahayd ayay falowgeeda Itoobiya ku jirtaa markaan waxaan leeyahay go'aanka uu madaxweynuhu soo gaaray waa khalad marka madaxweyne dib uga noqon ka oran lahaa Itoobiya iyo heshiiskeeda khalad baan u arkaaniyo waxay nimaad ka qaadan karaysaa awshada loo dhibtaa way Itoobiya waa dawlad inaga xoog weyn oo inaga awood badan marka Itoobiya heshiis lama noqon karnaba sidaba uu noqon karnaba Itoobiya waxaanu ka yaabanaayba baashiyaasheedii iyo wixeedii kala suuqa joogeen ka yaabanaayba sawabayado ciidanna dhex keenta loo baahna taaniyo waa khalad baan u arkaa wali waanu ka dagaalamana arrinkaas waa arrin aad u foolxun ma yeelanayo haddaan nahay shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland heshiiska Soomaaliland iyo wadagalan Itoobiya waxaan u arkaa heshiis qaldan waayo dawlad ka xoog weyn ka dal weyn ka dad badan ka siyaasisan in aad baddaada iyo dhulka aad iska leedahay aad ku soo dhaweysaa waa maxba kama jiraan waxaan markaa u soo jeedinayaa baarlamaanka Soomaaliland inay diidaan dawlad naga xoog weyn naga dal badan naga dad badan naga istiraatiijisan gaala ah naeeganaysa inaan loo miliyanahay inaan awalba noo dhutinaysay inaan dhulkayga ku soo dhaweynaa ama aan dekedeeda ku soo dhaweynaa waa qalad madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay arrinka kama fiirsane shacabka Soomaaliland meel kasta ay joogaan waa inay ka dhiidhiyaan waa inaanay ogolaan in dekedooda ciyaar lagu qaato 50 sano la yiri 50 sano waa soo socota 50 sano oo Itoobiyaanku ay halkan haystaan waa 100 sano oo soo socota qabsanayaan dadkuna halkan lagu beerayaa Hargeysa dadka lagu beerayaa Itoobiyaanka adna deked baad ka hadlaysaa marka ma ogolin waa in dalkayga aan u madax banaanahay waa in dekedeeda u madax banaanahay haday kala noqonayso waa in baarlamaan la soo mariyaa baarlamaanka Soomaaliland waa la mariyaa sidaa daraadeed ma ogolin waxaan anigu u arkaa heshiis ka leexsan danta qarannimada Soomaaliland guud ahaan iyo gaar ahaanba waxa weeye marka laba dawladood jaari wax kala seexanayaan waxa muhiim ah in aanad dhulkaaga cid ajaartihiin oo damac ku jiro in aanad u saxiixin sidaa daraadeed waxa weeye biri kamaal hadii heshiiskaasi la iskaga hor imaado waa dawlad ka tamar badan ka xoog badan isku dhaxadu yimaado dekedana wala xaga dekedana wala laga dhufani xaga kala birkana wala laga dhufani marka madaxweynahan waxaan leeyahay arrinkaasi arrin sax ma aha maadaama isagu hadda heshiiska uu saxiixay qodobka kaliya noo banaan waxa weeye baarlamaanka Soomaaliland inay arrinka ay maxay ahayd hawada u diraan oo aanay aqbalin
waayo masiirka dalka iyo dadka ayaa ka weyn wax walba markaa madaxweynehena waxaan leeyahay arrinkaa waad ku degdegtay kumana saxsanid raallina kama nihina rayahaan anugu halkaan ka taaganahay markaa madaxweynaha waxaan leeyahay arrinkaasi waad ka sumbiririxootay maadaama oo abiy axmed uu doonayo muddo badan deked in uu dowladdiisa u helo haddii uu heshiisku waayana uu ku helo qori afkii siduu maalmihii dhoweytalo uu lahaa 200,000 oo milyan baanu haynaa buuri marka haddii ay deked waayaan buuri qasab bay ku heli doonaan markaan waxaan u arkaa dowladda Soomaaliya inaanay ku saxsanayn haddii cid deked loo saxiixayo dowlad shisheeye ay nagumaysanaysana anigu waxaan qabaa dowladda aynu jaar ka nahay aynu wax wada lahayn in dib inta loo wada hadlo loo heshiiyo dastuurka Soomaaliya dib dhashka looga tumo inta nin madow nagumaysan lahayn mid aanu saaf garanayo in nagumaystaan uu raalli ka hay heshiiskan waxaan arkaa soo dhaweynaya aragtaan waana ku farxsanay waana ku qanacsanay sababtoo dalka waxa loo dirtay madaxweyne dastuur buu leeyahay sharci buu leeyahay buu leeyahay anigu shakhsiyan markaan rayigayga cabro adeer badda madaxweynihiisa oo fadhiya oo abeer dhinac fadhiyo ayuu ku hadlay wixii ka jiray ma bixin maaha caabumo maaha waa karaan buuri kordhe abeer dhinac fadhiyay wax qarsan ma jirto marka waxa leenahay anagu wax kasto oo aan qarannimada Soomaaliya ku helino oo aan diinta islaamka ahayn oo ka baxno diyaar baan cid aan kala tashanayna ma jirto Soomaaliya waxa leenahay ay rama labada Kuuriya noqon doona waqooyi koonfur noqon doona nugeerkii wana dul saar doona marba ciideedii ilaalin ama Imaaraadka iyo Sacuudiga laba waala marba afka macmaanka isku gura aynu haana labadii ka diyaar anagu badayga warkeena Itoobiya adduunku waa adeer wax wala isweydaarsadaa ceeb maaha waana soo dhaweynaa madaxweynaha roog bal dhigaya uu ku maasi muusar wax kale waa looga baqi karaa ولا مامول مسماس وحده لو لكن قرنمه سومالان شريف سلسلكا ka baxay kaay bixi marna waa gobolka Soomaaliland bishir rays Soomaaliland waxaan u arkaa in baligi Ingiriiska loo yimi ayuu abwaana gabay jiray farax nuur wixii waa dunida kala iibsaday loo geysay oo dunida khiyaarta goday oo ala soo aaday orgiga riyaa saadaxa oo dafaariga oo dunida habla laga jiray aqalka diiday oo dunida ninka la inta ku ameesay oo dunida khiyaartina iib ku doon tahay waxaan u arkaa aad iyo aad baan ugu xumahay in Soomaaliland in heshiis kale aad iyo aad baan ugu xumahay waa idinkeeda lagu socdaa markaan raalli ka yihiin marna raalli ka yihiin waa farax lixin kale ka jiray oo kiilo dunida kala iibsaday loo geysay oo dunida khiyaarta goday oo arki galay yaa waa lixin kale marka dunida kala iibsaday waa maanta sheegay waa maanta taagantay aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa iskaashiga caalamiga ay Soomaaliland la gashay dawladda Itoobiya wixii waxa weeyaan Musabiix Cabdi aad iyo aad madaxweynuhu ugu mahadsan yahay wuxuu furay dadkiisa waxaan ku oray il dhaqaale ayuu u furay iyo il aqoonsiba Soomaaliya 30 sanadood inagoo walaala oo dad islaam ah oo walaala ah ayaanu ka bariyeynay war idinkuna halkiina ku barwaaqooba annaguna aan walaalayaal mar haddii aan xasuuqdeeno mar haddii aan markii horena anagu naga yimi midowga oo markii rusniyo Soomaali waxa noqoto in anagu nagu jeesataan cadawga iyo diyaaradii cadawga loogu tala galay in anaga nabada dhaco de waa nasiib darro anagu hadaan markii hore hadaan hungownay mar labaad hungoobi mayno marka waxaan leenahay waan soo dhaweynaynaa heshiiskan u galay Itoobiyana aqoonsigeeda waan soo dhaweynaynaa Soomaaliyana waxaan leenahay haday badayada anaga iskale haday ka hadasho wallahi waa weerarina iyo bilaah yow arinka shalatole madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ka dhawaajiyeen ana raygayga iyo garashadayda garaadkayga marka la kaashado iyo aqliyadeeda iyo aqoonta u leeyahay culumta badda sharcigaas wuxuu noqonayaa wax muxuu ahaay ka kacbu noqonayaa waxa weeyaan adduunyadu asadka ugu weyn ee bulshada haysta waxa weeyaan waa biyaha badda weeyaan 120 milyan hadii maanta badana aan u fasaxno waxa laaliyo waxaan ka faa'iideynaa ma jirto adduunyadu waxa jirta xalaa interest bulshada caalamku waxa weeyaan inta badan dalalku way siiyaan bad laakiin waxaa la isku siiyaa Mareykanka waxa lagu siin karaayo hadii Mareykanku soo dago waxa weeyaan aqoonsi ma keli kana caalamiga international waana wadanka adduunka ugu qodin weyn ciidan bino hubin karaa hubin keli karnaa dhaqaalan keli karnaa horumar been keli karnaa laakiin Itoobiya deynteedii la dalaadhacsa waxa laaliyo waxaan ka faa'iideynaa inaan wax faa'iido ka faa'iideyno wanaagsan ilaa maaha waxa la tahay inuu dhibaato aan soo kororsanay marka laga hadlayo territorial siigana biyaha caalamiga iyo xuduudada caalamiga marka sharciga caalamka maritime law laga hadlayo loo noqonayo hay'adaha iimo hoostaga waxa weeyaan waxa jira 12 kaalmeel bay Soomaaliya xaq u leedahay wadan walba 12 kaalmeel bay xaq u leeyahay badda gudaheeda marka saa loo socdo marka la siiyo 20 kilomitir oo dhigma 20 kilomitir marka loo bedelo kaalmeel waa 10 kaalmeel weey
2.2 newtcal meel baa Soomaaliland soo hadhaya marka haddii 20 haddaan 10 newtcal meel Soomaal aan siino Ethiopia oo radiyada ka mas'uul noqonaysa wixii muxuu ahaayay badii caalamiga iyada laga xaajoonaya dalka gacanta marka 10 newtcal meel ku haya ay laga xaajoonaya marka aqliyan sharcan oo aqlan wax suuragal ma aha aniga wuxuu dagaalamayay sabab ku dagaalamayo wuxuu ahaa maxaabiis la qabtay haddaan maanta soo dhaweeyo kuwii muxuu ahaayay awogii qabtay awogii dagaalamayay waxa weeye waa garaadkii la yaa garaadkii waxa weeye soo la ku noqonaya marka wuxuu ka dagaalamay maanta soo dhaweeyo aqligayga sharciga caalamka loo noqdana waxa weeyaan wax sax ma aha oo interest adduunka la isku qiimeeyo interestiga kama hayno Ethiopia waa qiiqasa iyadoo dagaal ku furan yihiin iyadoo furina waxa laali waxa ka faa'iido Soomaaliland ka faa'iideyso ama Soomaaliland ka faa'iideyso ma jirto aqliyadeeda aniga ku soo dhawow suuqa Sambesi oo kan ugu ballaaran ee isku xidha qaaradda Afrika iyo suuqa adduunka Sambesi waa suuq casri ah oo adigoo gurigaaga jooga kuugu keenaya wax kasta oo aad ka dalbato website-ka sambesi.com waxaad si fudud wax uga iibsan kartaa website-ka Sambesi adigoo adeegsanaya Mastercard, Visa Card, Zaad iyo idahab la jaanqaad dunida casriga ah ee dhanka internetka u wareegtay sidoo kale waxaad si fudud uga dukaamaysan kartaa abka cusub ee Sambesi adigoo kala soo degaya App Store iyo Play Store